socdaalka shaqo uu maanta ku soo gaadhay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal wasiirka wasaaradda hawlaha guudhulka iyo guryeynta Somaliland Cabdilaahi Abubakar Ismaan ayaa salka ku hayay dhowr jeedo waxaana wasiirka magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ku soo dhaweeyay maamulka gobolka Awdal ka degmada Boorama isku duwaha wasaaradda hawlaha guudhulka iyo guryeynta gobolka Awdal Salebaan Aadan Samatar iyo shaqaalaha kala duwan ee wasaaraddaasi wasiirka ayaa halkan oo ah xafiiska meeyirka degmada Boorama kulan kula qaatay maamulka gobolka Awdal kan degmada Boorama mas'uuliyiinta wasaaradda hawlaha guudhulka iyo guryeynta ee gobolka Awdal kadib markuu kulankaasi dhamaaday oo mas'uuliyiinta si wada jir warbaahinta ula hadlay ayaa si rasmi ah u shaaciyay in guud ahaanba dib loo furi doono dhaqdhaqaaqa dhulka iyo kala iibsiga taasi oo in muddo ah u xanibneed qorshe magaaleedkii laga waday magaalada Boorama waxaana halkaas ugu horreyntii ka hadlay maayirka degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame Baradhe wuxuuna faahfaahiyay maanta ay tahay 20kii August 2022 waxaynu joognaa xaruntii dawladda hoose ee Boorama waxaynu u joognaa hawshii master plan-ka ama qorshe magaaleedka ee sanadkii hore dabayaaqadiisii aynu ka soo bilownay magaalada waxaynu ogeyn intiisii badnayd waynagii soo dhamaystirnay maanta waxaynu u joognaa muddadaasi dhulka shaqada laga qabtay waxa jira culaysyo fara badan oo dawladda hoose iyo shicibka iyo cid walba soo food saaray taasi oo ay keentay maadaama qorshihii dhulku uu socday inuu istaagay dhaqdhaqaaqii dhulku sidaa darteed bulshadu waxay in badan isweydiinaysay hawshii dambe ee harsanayd ee ahayd shaxda iyo farsamo wixii dhinaa waqtigii la qaban lahaa waxaynu maanta joognaa in hawshaasi aanu cadayno bulshada in berri maahe sahan dambe oo isniin ah oo bisha ay tahay 22kii August in wixii ka dambeeya wixii dad reer Boorama ay shaqo kaga xidhnayd hawlahaasi ee fayl haystay inay yimaadaan dawladda hoose waxaynu ogeyn bulshadu intaanay imanin dawladda hoose ee shaqada loo qaban inay tagi jireen nootaayada waxaan u cadaynaynaa in qof kasta oo fayl haysta uu yimaado dawladda hoose kadibna uu processkiisa ka bilaabo waxa idinku diyaar xafiiskii nashqadeynta ee gobolka taasi oo aan anaguna shaqaalahayaga diyaar yahay kadib marka qofka loo soo eego loo soo xaqiijiyo ay noqonayso dhul rasmi ah wixii qof nootaayo dhul ku iibsada maanta kadib aanay dawladda hoose ogeyn waxay noqonaysaa sharci darro barasabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalintii Baro sanadaytiisa hadalka qaatay ayaa waxa xusay Boorama waxa dhaqanahay inaad nootaayo joomatar intaad ka kaxaysato dabeed beertaada adigu iska soo jeexjeexato wax aliyaalay wax sharciya maaha waa waxba kama jiraan wax aliyaalay wixii aan qorshe dawladda hoose ogeyn oo aan joomatarada iyo farsamayaqaanada xarunta inoogu yimi aanay isla soo eegin waana nafayd hadhow inaan isku canaananin sharci maaha yan cid laga helin nootaayana waxa ma sharciyeyso joomatar suuqa laga kashanay waxa ma sharciyo sharci waxa ku noqonayaan marka dawladda hoose arsiga oo soo qortay beertaydii amba labada balood baan iibinaya amba intaasan naqshadaysanaya naqshadii ma igu jirtaa ma taala waxa jirta waa tii master plan-ka la inoo sameeyay master plan-ku wuxuu hawshiisu iska lahaa meelo badan baa u baahday daan ku calaamadeynay MCHyo iskuulo masaajido malcaamado wixii danguuda qofkii ay danguud kaga dhacdo amba midibsada ha noqdo ama kii beertala ha noqdo wuxuu leeyahay waa lala soo eegaya haday noqoto meel ku munaasiba isna dhul bedel buu leeyahay cid wax waayaysa qof wax waayo dhulkiisii waayaya ma jiro ugu dambeyntii waxaa hadalka soo gunaanaday wasiirka wasaaradda hawlaha guudhulka iyo guryeynta ee Somaliland Cabdilaahi Abubakar Ismaan waxaan jecelahay inaan u sheego ummadda reer Awdal guud ahaan ee gaar ahaan degmada Boorama waxaan wadnaa waxa qorshuhuna ma aha zilbey cagafun inta meel la mariyo deedna barina lagu shaqeynayo qorshaha dad maqashaan wuxuu leeyahay qorshe dhow iyo qorshe dheer labadaba qorshahan waxa qorshe dheer waa 15 sano soo socda magaalada Boorama sida uu ekaan doonto ayaynu qorsheynayna ida loo eegayo waxa u baahan tahay haday noqoto adeegyo haday noqoto isticmaalka dhulka iyo haday noqoto eeshada degay intaba runtii waxaynu markaan qacanta ku haynaa waa urban profile ama profile dhammaystiran oo leedahay degmada nimka Boorama waxa kaloo imika aynu qacanta ku haynaa dhammaan maabiskii ay lahayd himaabisa lan yuusala waxaya doomiyaha degmada iyo xafiiska nashqadeynta qaranka ee degmada waxaynu saalaysaa bidmillaahi kariin
inaynu markaa qorshahaas fulino qorshe wuxuu baahan fulino anu badan dad badan waxa la gobolka awdal waa gobolka aqoonta qorshe marka la sameeyo wuxuu baahan fulino fulintu caqabadaha ay leedahay marka intaynu ku jira caqabadahaas ay ahayd maanta waxay noo soo gabagaboobay caqabadii dhammaantood oo soo gabagabaynay sabab maayarku sheegay 22 bisha August wixii ka dambeeya waxaad u iman doontaan waxa la iman doona xarunta dawladda hoose iyadoo wixii maabisa ee khaldamana la sixi doono shaqaalihiina diyaar ku yihiin oo nin kastaba goobtiisa u tagi doono insha Allah haddii la ka dhigo marka uu diin furay dhulkii sidii looga shaqeysan jiray ay uga shaqeysanayaan Maxamed Xasan Ismaaciil Shardare wararka telefishinka Sahan Boorama.